cidhidhi kasta uu qofka bini aadamkii galo hadduu tasbiixda badiyo wuu ka caafimaadaya. hadduu tasbiixda badiyo laabtiisu way caafimaadaysaa. waana dawadii la siiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee loo tilmaamay inay tahay waxa uu ku caafimaadayo. bale waa dawada kurbo oo dhan lagaga baxo. balaayadu markay kugu habsato ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamaya wadannuuni id dahaba mugaadiba فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبي الله يونس با إلهي قرآن كاكا ورميا ومركو تلكي كعراضي وحبك مغلي وايان انتو عراضي كتغي يساقو مودا يين الله غبصرين إلهي وحولي سبحانه وتعالى وانو قبرنا دبتنا وأكيد دون طفولي سين وضا نقانو دونتي دبتنا laga tuuray ama ka dhacay dabeetana baddu liqday badda gudaheedii haddana nimiri sii liqay qof badi liqday awal bay baday ahayd ilaan geed la cuskadaana meelaad waxaad ku badbaadaa jirin iyadoo baddu ku liqday haddana hadduu nimiri afka ku geliyo calool nimiri buu galay markaasuu dhawaaqay baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات أنت ومفسر دي وحاو كنا واقوا محي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهي وادون بحق لقوا عابدا سبحانك حمك هفنان تادي نزهني دادي يويني دادي إني كنت من الظالمين وحنا نكتشراه ما ها إله ظلم هذه ظلم ضيه وأنا ظلم يجيبوا لي قفك مؤمن كير نبطه وحر رميسي إلهي إنه يهي محي ليس بظلام للعبيد وحلالي وحاضي إنكو شراين يهي فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحلالي وحا مشاكلكو قبصدا واحد قيستين وحكم يدو لقوه رمريي ريتي weliba in badanna inuu rabbi kaa dhaafay wayacfu can kaiir. dadka badhna waa loo ururiyaa waxaasoo dhan oo naarta lagaga wada jaraa dadka badhna adduunka lagaga sii jaraa. nebiyullaahi yuunus wuxuu ku dhawaaqayaa markaa meeshaan ku jiraya dhibta ay haysataa waa waxaan anigu geystay. ilaahu dulmigaad adigu i dulmiday maaha. ilaahu afcaashaada oo dhiyo dhammaanta xuma waad ka dheertay subxaanak buu leeyahy. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu jawaabayaa markaa wixii lagu badbaadiyey nebiyullaahi yuunus inuu yahay maxay tasbiixdaa ilaahay fii suurati saad ku tilmaamaya haddana falowlaa annahu kana min almusabbixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun baa ilahay yidhi falowlaa annahu kana min almusabbixiin. haddii lala yahay baa ilaahay leeyay markuu dunida joogay ama nabadda qabay ama caafimaadka qabay haddaanu ka mid ahayn kuwa tasbiixsada kuwa rabbi u tukadee tasbiixsada haddaanu ka mid ahayn lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun. halkaasaan ku ciqaabi lahaa baa ilaahay leeyay inta laga soo saarayo. idan sababu najaati waxa uu ku badbaaday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey waa maxay waa inuu ahaa min almusabbixiin. idan kurbadaa lagu faydaa ayan kaanat kurbo ku haysato oo dhibaato ha noqoto oo jasadiya jidh ahaan ku haysata ama ha noqoto mid laab ahaan ku haysato nafsiya psychologically problem ku haysta oo aad xamili kari la-d oo qaadi kari la-day waxa lagaga badbaadaa inaad tasbiixdaada badisid. bale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya inuu xidhiidh ka dhexeeyo inshiraaxu sadriga qofku inuu farxo laabtiisu ballaadhato inuu ridaa dareemo iyo tasbiixda in xidhiidh ka dhexeeyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay in laabtiisa loo sharxay alam nashrax laka sadrak. nebi muuse waa ku ducaysanayay rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani. ilaahu laabtayda ii waasiciyo ii sharax cidhiidhi hay dareensiin. ilaahay nebi moxamed wuxuu u tilmaamayaa markaa siduu laabta ugu sharxoomayso siday tay wa min waraa'ihina inaga fii suurati طaaha ilaahay wuxuu leeyahy
فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى با إلهي يدhi waxaa ilaahay leeyahay sabir oo tasbiixso oo tuko oo cibaadayso waagu intaanu beriyin iyo gobolku intaanu dhicin inta ka dhex leh iyo habeenka gobol ka mid ah iyo daclada maalintii waqtiyada salaadaha iyo cibaadaadka la sameeyo dhan ayaddu waa soo hosgelaya intaaba tasbiixsan la yidhi maxaad helaysaa markaa lacallaka tardaa baa ilaahay yidhi kay tardaa si aad raalli ahaanshiye u heshid idan bayna alridaa watasbiix bay aayaddan isku xidhaysaa iyana qofku hadduu rabo cidhiidhiga nafeed inuu ka baxo warwarku inuu ka dego inuu ka mid yahay tasbiixdu waxa ay ku degto waana wax la faray qofka muslimkaa fii xayaatihi kulliha ama fii yowmihi wa leylih intaan cadceedi soo bixin intaan cadceedu dhicin habeenka gobol ka mida maalinta qeybteeda hore maalinta qeybteeda